بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ودرسي صدنات كتابك التنبيه في الفقه للإمام الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وحوك بلامي يا قولك ولا مصنفك رحمة الله تعالى عليه. باب صلاة الجمعة. وحين كسب بحني صلاة دورها أو أحكام قارو إليهين درادد أبواب لوجو عقيدي ويكمل أهيد صلاة الجماعة ذي يصدق لصلاة الخوف كي وحاوقد بين دونا قيب تاسي صلاة صلاة الجمعة وكلنا أيوة وقد بين دونتا وحين نقول شيدنا يعني صلاته كمد كأها صلاتها الشنطة سأحكام تجارك على هيد أيتها وقد بين دونتا وحوحي الضمبين لو قلي دونا إن شاء الله تعالى صلاة قارئة أو عن صلاته شنطة هيد كمد هيد صلاة الجمعة صنفك رحمه الله تعالى حقا ضمبا أيور لغاي وصلاته قارك هاسد عيده يكسوفك يكواس يوحو دحيسية صلاة الجماعة دي صلاة الخوف كي هل كان أيو كيني علادنا هورين هو إشارنا يو قود أهام بمركو مصنفكو كورما يو صلاة أحكام تقارك عليه صلاة أحكام تقارك على هاي اللبا يوقع بسميين كوا صلاة شنطة ونكمده لكن أحكام قارية شيء iyo kuwa ka madax banaan oo iyagu salaado kale oo salawaatul khamsihi ahayn hadaba salaadan jumcadu waxa khilaaf ku jira ma salaadihii shanta ahaa oo bay kamid tahay oo mid kamid ay bedel ka tahay oo dhuhurkiya mise waa salaad mustaqil oo shantii ka baxsan oo waa salaad lixaad marka maadaama hadalkaasi uu jiro oo culimadii qaar kood ay ka dhigayaan furuucdii madhabkana qaarba ay ku dhisan tahay in salaadani salaad mustaqil oo madax banaan ay tahay ee aanay salaadihii shanta ahayd mid kamid oo dhuhurkiya bedel ka ahayn ama aanay ahayn iyadii la gaabiyay maadaama qowlkaasi uu jiro ayuu markaa xaggan soo xijisiiyay salaadaha mustaqilka ee madaxa banaan lagaga hadli doono salaadani waxa la isla ogol yahay qofkii ay ka asaxdo maalinta de salaadii shanaad inay u tahay oo aanu de duhurna tukanayn jumcihiina tukanayn laakiin hadalka aynu sheegaynaa waa mid ku saabsan xagga takyiifinteeda waynu ognahay maalintan de shan salaadood baa waajibayo jumcihiina ay mid kamid tahay laakiin maalintan waxaynu oranaynaa afar salaadood iyo salaadan jumcaho iyadu gaaraho salaad mustaqil ah baa waajibay oo duhur maalinta uu dhacay ma jiro mise waxaynu oranaynaa jumcadani waa duhurka laftiisii uuno la gaabiyay ama salaadani bedel bay iyadii ka tooyadii ayuun bay bedeshay salaad madax banaan ma aha marka furuucda madhabku waxay u badan tahay inay salaad mustaqila oo madax banaan tahay halkana waynu ku arki doonaa insha Allah ta'ala furuuc arrinkaasi ku dhisan musannifku salaada jumcada laba baab uu kaga warrami doonaa baabka koobaad waa kan uu ku magacaabay baabu salaati al-jum'a ka kalena wuxuu ku magacaabaya musannifku hay'atul jum'a baabu hay'atil jum'a xagga hay'ada waxa uu kaga warrami doonaa sunnayaashii guud ee maalinta jumcaha qofku uu maaragtay salaada ugu soo diyaar garoobay qaabkii loo imanayay iyo sidoo kale waxyaalo qofka ku soo dariyaya salaada dhexdeedii halkan baabkan hore oo caaw darsigeenu yahay waxa uu musannifku rahimahullahu ta'ala kaga warramaya saddex qaybood qaybta koobaad waa salaadan jumcadu de waa waajib iyada hadalkama taagne yey ku waajibtaa
عدة أي كواجبته والله جوا الرمي دونا هل كانوا شروط وجوب الجمعة ولا جو شيء دونا وحكروا والله جوا الرمي دونا شروط صحة الجمعة وحي أنا الله يلاحظه أو صلاة دني markii ay waajibto kadib hadana shuruud bay u baahan tahay ku ansaxdo oo ay la dheer tahay salaadihii kale marka taana iyadana musannifku rahimahullahu ta'ala waa uu kaga warrami doona waxa kale oo halkan lagaga warrami doona shardi kamid ah shuruudaas oo khudbadiya iyadana ahkaamteedii oo iyaduna marka shuruudo iyo waajibaad ama arkaan iyo sunnayaalba yeelan doonta iyadana ahkaamteeda ayaa halkan lagaga warrami doonaa biidhnillaahi ta'ala qaybta koobaad ayuu bilaabay oo shuruudul wujuubkiya waxa uu yiri man lazimahu adh-dhuhru lazimathu al-jum'atu illa al-'abda wal-musafira wal-mar'ata wal-muqima bimawdi'in la yasma'u fihi an-nidaa'a أو لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب يخاف موته ومن تبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف من ظالم انت أصوك ورمي شروط عدة أي صلاة كواجبته وحولي من لزمته الظهر قفكي صلاة الظهر كواجبته لزمته الجمعة صلاة الجمعة لو كواجبته أو شروط وجوب كيدو مركا حقي ضدك لغا هدلا يا فرادي أعيانتي وشروطه أي كواجب جرتي صلاة الظهر يد صلاة كلا شنطيب كل مسلم كلف ودعاقل يبالغ مركا كواجبته طاهر من الحيض والنفاس ساسي نوسو هاجرت مسلم مكلفة وطاهر مسلم عاقل بالغ طاهر انتي بهالكن ويتالا marka dadkii taasi ay ku waajibi jirtay ayay tan ku waajibtaa illa al-abda marka laga taga wuu yiri adoonki salaadii kale way ku waajibi jireen afarta shardi uu soo galay halka marka shardi baa soo kordhay weeyaan macno oo shuruuda soo korodhay shardigii koowaad waa in qofku deemaartay an yakuna ahlan liwujubi salawaat oo halka hore inuu ka fahmo waa inuu qofku yahay qof salaaduhu ay ku waajibi karaan shardiga labaad halkan ka fahmaysa waa al-hurriya xornimo waa shardi ku soo kordhay wal musaafir buu ku yiri iyo musaafirki sagara kuma waajibayso waxa ku soo kordhay shardi karo al-iqama aad oranayso wal mar'ata iyo gabadhii qofkii dumar ahayd iyaduna jumcadii kuma waajibayso halkaana sharti kala ku soo kordhayo adh-dhukura ayu shartigaasina noqonaya wal muqim bi mawdi'in la yasma'u fihi an-nidaa iyo qofkii deganaa meel aan laga maqlaynin adinka min al-mawdi' meel laga adimo الذي تصح فيه الجمعة جمعة أي كأن سحيسي كاسنا لغمالة والمريض كي حنون سنيي اسنا لغمالة ومن له مريض يخاف ضياعه قف حنون سنيي كان بقانا يا إنو ضيعمه قف حنون سنيي أيها يا وضيع ما يهدو جمعة لغمالة أو قريب يخاف موته أما قف حنون صنيا أو وكبقنا يئنو جيريودو سكرات كي كجرة ومن تبتل ثيابه بالمطر في طريقه يقفك مريه سؤال كوقيان رومك انتو سيس عضو ومن يخاف من ظالم قفك كبقيي قف ظالم فلا جمعة عليهم قوة جمع الله قمالي شروط دي شيخو
hawlo fara badan ayuu ku soo kordhiyay laakiin waxaad ku soo ururinaysaa waxaan oo dhan saddex shardi baad isugu geynaysaa haddaad afar sheegto sida culimada qaarkood ay maraana dhib ma laha alxurriya oo cabdiga inuu maaragtay ka fahmo iyo aldhukuura oo halkaa almar'a uu yidhaha inuu ka fahmo aliqaama haddaad gaar u saarto kutubta madhabka inta badanna gaar bay u saaraan inuu qofku muqiim yahay oo aanu musaafir ahayn kii musaafirka ah isagana dee jumco laguma leh iyo cadamu alcudri almubiixi litarki aljamaaca halkan man kaana macduuran bicudrin yubiixu tarka aljamaaca man kaana macduuran oo halkaa alcabd walmar'a waman kaana macduuran kasii raacay waman kaana macduuran bicudrin yubiixu tarka aljamaaca qofkii cudurdaar haystay banneeya salaadii jamaca in laga haro marka maxaa soo gelay maca musaafirka laftiisa halkan soo gelay safarkii dee salaadii jamacada waa tii looga hari karay marka haddaad isaga gaar u saarto aliqaama tiraahdo inta kalena aad markaa halkan soo gelisidna waa caadi ood markaa tidhaahdid المقيم بموضع لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه الجمعة هل كان صلاة الجماعة كيف لما أولنينين وسفر قصير نقونيس ده سفر كان قصير كا وسوق لما هي صلاة دي جماعة جمعة دينا واساس وكلا هدان أذاك مقلي وقفك هدود دقيقة هاي الميل مقالة ده كله ماشي سيساق مقالة معه أما مقالة ويتهاي أفرتن كي قفة صلاة الجمعة يكو أسحيسي أيان شوقين مقالة دينا ويقوم موقتها وأدوي كاسي وحل إيغيا كونها مقالة ده هدي عد دير لقاقا أدمو هل كانوا الدقين هاي مسوق قاري أو بلا مكرفونة عد دير بلا مكرفونة هدي لقاقا أدمو أو قف عد دير وكو أدمو qof dhagihiisu ay caadi yihiin ku aad u dhaga fiiqano meel fog wax ka maqlaya lama doonayo dadka markaa ku cuslay xaraj kaliya dadka sidoo kale mid dhaga culus oo isagu ilaa dhagta loogu soo dhawaada wax maqlay kaan isaga laga qiyaas qaadan maayo laakiin qofkii dhaxdhaxaadka dadka caadiga ayaa laga qiyaas qaadanaya koonaha haday ka maqli karaan adinka waxa la leeyahay dadka halka degan jumcada waa lagu leeyahay waa in magaalada yimaadaano ay jumcaha tukada laakiin hadii meeshoodu ay tahay meel aan laga maqlayn adinki marka adinku ma inay masaajidada ka maqlaan koonaha hadii laga adimo weey koonaha iyaga soo xig hadaan marka codku soo gaaraynin dadka jumca lagu mala iyagana waxa la mid ah kii xanuunsanay qofkii xanuunsanay isagana jumca lagu mala waa xanuunsanay kii qof xanuunsanaya dul joogay hadduu ka tago uu dayacmi isagana jumca lagu male sidii aan jamaacada ba loogu lahayn kii qof qaraabadiisa ama saaxiibkii ama xaaskiisii cid ay de markaa isku fog yihiin uu markaa xaalad adag ku jiro oo sakaraad ku jiro isagana oo markaa ka baqanayso ka baqan naftu ka baxdo isna culays bay ku tahay jumcadii waa laga daynay kii hadii roob da'ayo markii roob da'ayana oo roobkaas dadkii uu qoynayo iyadana kuwaasi markaa jumcadii oogi yaani jumca lagu yeelan maayo kii baqanayay jidkaba ka baqanayay daalin ka baqanayay ama bahal iyo wax la mid ah de kaana lagu male marka khulaasadu waxay noqonaysaa intanoo kaliya ma dhammaan cudur daaradii banayn jiray tarkul jamaaca salaada jamca in laga haro jumcadiina in laga haro way banaynayaan hadii marka qofkii jumcadu ay ku waajibi lahayd laga helo salaada jumcadu inay waajib tahay quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummaduba waa tusiye quraanku uu tusiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina aamanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' marka salaada jumcada loo aadimo u degdega ilaahay xuskiis wa khudbadii khudbaduna waxay hordhac u tahay salaadii
marka hadii khudbadii in loo degdegaay waajibtay salaadii maqsuud kaba ahaydna waa min baabi awlaa baa loo degdegaa de waajib bay noqonaysaa xadiiska nabigana alayhi salaatu wasalaam way ku sugan tahay jumcada wujuubkeedu حديثك طارق بن شهاب الجمعة واجبة على كل مسلم صلاة الجمعة واجب يكون قف كستو مسلم أبو داود غير كيما صوصار استثناء بقى كتير حديثك إلا 4 أفرمويان عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أفرمويان الضم لليه كشرط حرية ذلك كاغا صباحي أو امرأة أما قف ضمرة إذا صلاة الجمعة كما واجبيس شرط ذكورها كصباحي أو صبي أما المير كاسب مركب مكلف موهين من لزمته الظهر لزمته الجماعة بين قف كي مركب صلاة يكون واجبته الجمعة كواجبته صبي كيو مجنون كيو كواسي أهل تكليف كبعان أهين كما واجبيس أو مريض أي مركب حديث كيو أما قف كي حنون سني كي حنون سني marka kii xanuunsanay xadiiskaas sheegay xadiis Tariq ibn Shihab waana xadiis culimadu ay saxiixiyeen waxa marka mariidkiina la haleeshiinaya de dhammaan dadkii cudur daarada lahaa ee marka horeba jamaacada ka hari karay musaafirkiina de si gaar ah isagana waxaba ugu sugan nabiga kaleey salaatu wasalaam asfaartiisi safaradiisi dheeraay faraha badnaaya uu gali jiray mid qurana inuu jumcadu kaday lama sheegin بل ويدين كوغو دا عرف النبي عليه الصلاه والسلام مال الجمعه ابو استاغ صلاه الجمعه لما تكن ظهر بو تكن حاطو سنين الظهر تكدي دا waxa tusinaya markii la khudbadeeyay kadib la adimi jumcadana maxaa la yaqaanay adaanka ka horeeyo khudbada mise khudbada horeysa da ma yana adaan ka horeeyo marka la adimo kadib la khudbadeeyay laakiin markii nabiga عليه الصلاه والسلام عرف istaagay horta waa khudbadeeyay markuu khudbadiisii dhameystay ayaa aadaankiina u dhacay oo aadaanka ka dambeeyay marka waxay tusinaysaa in khudbadaasi baan jumcana way ahayd inaan marka salaadii jumcaha ahayn salaadani in haday salaadii jumcada tahay inta la adimo ayaa hadana la khudbadayn laha marka kadib ayaa salaada la tukanna كم مقيم بموضع لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه الجمعة يسقر حديث بابا السيجاره ugu soo aroorayo sunanka ku jira الجمعة على من سمع النداء جمعadu waxay ku waajibtaa cid adinka maqlaysa ayay ku waajibtaa marka de cidii aan adinka maqlayn oo de loola jeedo kii joogay meel aan laga maqlayn إلا هذي لا يلاقون كمقلي معناه ده واحد نقول له هاي كل هذا أنا أديكم مقلي مثلا ير مشغول سنايد أما ميل بوقات شوكتين الجمعية كواجب ولا قائل بي تعصيد أنا ما أورنا يسوع مركع على من سمع النداء أي على من بموضع يسمع فيه النداء وعدي شوكتين ميل أدين كلاجا مقلي كده قاع عصلاية عن الأذان كمان مقلي الجمعة ده كواجب يسا كل ده مقالة دي شو مركع من سمع النداء وبالماركتي القوة من حيث الجملة مركا تذكي لا ايغو وتذكي مركا بالقوة ولا بالفعل معها إن يحطب أهان إمك مقلان خصب معها إن أي مقل كريان وهو سماع بالقوة لا بالفعل وعير من لزمته الظهر لزمته الجمعة إلا العبد والمسافر والمرأة والمقيم بموضع لا يسمع فيه النداء ساسين وضبطين لا يسمع فيه آن لقى مقلين النداء أدنكي من الموضع لقى أدمو مال ماشي لقى أدمو الذي تصح فيه الجمعة ماشي الجمعة ويكون أصح يسمر كاللقى أدمو مال آن أذاك سوء قارين قفكي دقنا سدكم واجبيسو والمريض كي حنون سنيي ليسغنا وبدع عذر دار كاسو هيستايو كو واجبيس حديثنا waa ka sheegay ومن له مريض يخاف ضياعه اساسنا كي قف حنون سنيي او ما aragtay qof xanuun sanay dul joogay laga baqayay inuu dayacmo hadii uu ka tago duu doona qof aan marka waxba isku ahayn doona noqdo aw qariibun ama qof dhow buu leeyahay khaafu mawtahu geeridiisa ka baqayo ومن تبتل ثيابه بالمطر في طريقه وقفك
dharkiisu ku qoyayo roobka da'aya hadduu markaa wadada maro marka iyadana xadiidkii ibn Cabbaas baa ku sugan uu ku lahaa ninkii adimayay marka maaragtay maalin roob jiro aad adimayso hayya ala salaah halkii aad ahayd waxaad tiraahdaa alaa sallu fii rixaalikum waar guryaha ku tukada jumcada markaad maalin roob adimayso markaasaa ibn Cabbaas dadka qaarkood ay markaa wajiga ururiyeeno markaasuu yiri waa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hala yaabin oo maartay ha qariibsanin markaa hadii roob daayo dadkii ay markaa qoyayaan jumcadii jamaacadii way ka dhacayaan waman yakhafu min zalimin ki daalin ka baqay daalin markaa waxa loo jeedaa in qofkii maartay waxaan xaq darro wax ugu geysanaya ama hadii si xaqa xoolaa laga qaadanaya xaq baa loogu leeyahay laga qaado ama waa la qisaasanaya dekaasi markaa inaanu xaq u lahayn ayaa halkan ka soo baxaysa laakiin waxay culimadu leeyihiin haddii qofkani uu ka baqanayo cuquubo in lagu qaado dambi uu geystay se uu filanayo hadduu yar meermeero ka meeraysto in laga dhaafayo oo cafi iyo saamaxaad uu filanayo hadduu muddo meeraysto waa laga cafinayaa jumcadii iyo jamaacadii ha iska meeraysto ilaa inta de waxa weeyaan saamaxaada uu helayo marka qolayaha qaarkoodna ishkaal bay ku keeneenoo de ninkan inuu naftiisa salimo ayaaba xaq loogu leeyahay xaq baa lagu yeeshay inuu isa salimo xaq loogu leeyahay sidee markaa jumcadii iyo jamaacadii looga ridayaa bay qaarkoodna yiraahdeen halka ishkaal bay ku keeneen jawaab ay culimada qaarkood bixiyeen waxa la yiri ishkaalka ka xoog badanoo jawaabtaasi jawaab markaa muqnica ama qancin karaysa fiqi ahaan qofku ku qanci karaya ma wuxuu sheekhu falaa jumu'ata alayhim dadkan hadaba aynu tirinay jumca laguma le wa in hadaru hatta haday yimaadaan masjidki hatta masjidki yimaadaan jumca laguma le dumarkii haday yimaadaan masaajidki intay duurkooda iska tukadaan bi iska tagi karaan ama iyagoo tukan bay iska tagi karaan marka la aqeemo ama marka salaadaba la galo lagu qabsan maayo loo maxay ka soo doonaysa waxaan leenahay de waa sidii idin fiican jumcada tukataan waa sidii idin fiican kala hada timaadeen laakiin iska tagayso cidina markaa kuguma qasbi karta inaad sii joogto jumcada kuguma waajib musaafirkii waa la mid adoonkii waa la mid kii yaraayaan qaangaarka aynu waa saas oo kale wuxuu yiri illa al marida ka xanuunsanaya xanuun loogu cudur daaray mooyaane iyo waman fi tariiqihi matar qofka jidkiisu rooban yahay fa innahuma labadani idha hadara markay yimaadaan jumcadii lazimatuhum aljum'atu jumcadu way ku waajibaysa oo ma noqon karaan labo ka soo reebay kuwa hore dadkan cudur daar bay lahaayeen oo jumcadaaba ka dhacday marda jumcadii ka dhacday ama ha yimaadaan ama yaanay imanin laakiin labadan la soo reebay waxa la eegay cilada oo ciladu waxay ahayd marka qof xanuunsanaya jumcada laga dhaafay ama kan roobka maaragtay uu ku daayo laga dhaafay de socodka ay soconayaan baa dib aha de dhibaatadii iyagaaba ku dhacay Soomaa way dhamaatay baad dhibaatadii kolku kii xanuunsanaya isa soo kalifay masaajidkii yimid wixii laga dhowrayay waa u sameeyay marka waxa jumcada looga dhaafaa meeshan ma taal kan soo qoyayna de waa kan iska soo dhax qaaday roobkii haduu qoyayna soo qoy haduu maartay badbaadayna soo badbaadada masaajidkii buu jooga lama oranayo waad noqon kartaa lama oranayo la oo cudur daarkoodii meesha ka baxayba wixii laga ilaalinayo meesha uu ka baxay laakiin gabadhii haday timaadii haday maqantay waa qof dumaraw ma wax ma aragtay wax iska bedelaya ma jiraan musaafirkii haduu masaajidka yimaado soo galay hadaanu soo gali waa musaafirkii oo musaafirnimadii kama baxay sabigi waa saas oo kale marka kuwa kale iyagu awsaaf ay ku sifaysan yihiin oo aan ku kala duwanayn inay guri joogaan inay masjidka yimaadaan ayaa ku sifaysan yihiin oo iyaga kama dhacay iyaga marnaba kuma laazimayso laakiin labadan iyo kii indhoolaha ahaa ee cid soo kaxaysa aan haysan ee isla soo kalifay intuu ul iyo wax qaatay oo maaragtay wadooyinka wax ku dhuftay iska soo socday isa soo dadka masaajidkii yimid iyaguna ma noqonayaan
كل هذه يمادين مشقة لو ديدي جد كاي مريان باللو ديدي دائما كل شيء يسوي مريان مجرد مساجد كيف يشوفان جمعة دي ويكون واجب يساقوا ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة والأفضل ألا يصلي الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة ومن لا جمعة عليه قفك عن جمعة الله ولا هاي لكن أي كأصح يسوي قفك عن جمعة الله ولا هاي سجمعة أي كأصح يسوي مخير وحل الدور رنسين بين الظهر والجمعة ظهر كي الجمعة دي وتدكي صلاة أنصحيسي تدكي أنا صلاة كي والله إيو قبل دمر كهرباء صلاة أنا كاسحين حائط كهيديو تكو اسميشن سوق لي مايان لكن قفكي ظهر كو كأسحي جمعتنا أنا كو واجبين سيدا مسافر كي يا قبل قفكي دمر هاي كواسي جمعي ويتكن كرام لكن طبعا لمن وجبت عليهم waxay u tukan karaan iyaga oo tabac oo daba jooga oo yaani waxa weeye ku qabsanaya dadkii ay salaadani ku waajibtay oo dumarkii kaligood jumca iskama oogi karaan musaafiriintiina kaligood jumca iskama oogi karaan sida dhalinyarada qaarkood sameyn jireen marka rixalaadka meelaha la baxay inta laba bas iyo wax ka haystaan meelaha iska tagaan maalinta jumcaha iyo dadana khamiis iyo jumcaha iyo meelaha iskaga soo yarnagaadaan ayay jumcahan halkooda iskaga tukadaan xasu jumca ma الوجوب baa la doonay musaafir baa tahay adu waa dumar jumca oogay oo kale dumar inta ay surursadeen si gaar ah maalin jumca u oogay waxba ka socon mayso musaafirkiina waa saas oo kale laakiin waxay ka asaxaysaa in ay la tukadaan dadkii jumcuhu ku waajibay oo masaajidada dadku ay ku tukanayeen ay yimaadaan oo la tukadaan dadkii saasa ka asaxaysa marka mukhayyar saasa lagu leeyahay waxa la dooransiinaya bayna dhuhri wal jumca inay dhuhur gaar iska tukadaan iyo inay dadka jumcaha la tukadaan labada ayay kala dooranayaan wal afdal hadaba sida fiicani alla yusalli adh-dhuhra wa in anu qofkan aan jumcadu ku waajibini dhuhurkii tukan illa ba'da faragh al-imam imamku markuu ka dhamaado mooyaane min al-jum'ati jumcadi marka jumcada laga baxo una tukadaan dadkii jumcadu aanay ku waajibinayeen niri labada way kala dooranayaan waxa u fiican buu leeyahay sheekhu inay sugaano ilaa jumcada la dhamaynayo aanay iyagu duhurkooda tukan haday iska tukadaan way ansaxaysaa waa caadi markii la aadimaba inay dumarku iska tukadaan markii la aadimo markaan ahay de waa adaan kan dambe imka adaankii hore iskaal baabada ka jiro dadka masaajida badan waxa laga aadimaa waqtigii soo gali arintaan hore inuu baraarujinay saxay marka aan adaankii waqtiga sheegay de marka kan damba markii la aadimo way iska tukan karaan dumarkii iyo musaafiriintii iyo caruurtii iyo kuwii aan jumcadu kii xanuunsanay waxa soo isku tukan karaan laakiin waxa u fiican buu leeyahay sheekh inay sugaano marka jumcada laga baxo kadib uun ay iyagu tukadaan xasan loo leeyahay waxa sida loo leeyahay salaadan jumcadu iyada ka kaamilsan oo ka dhameystiran doorka maalinta marka waxa dhici karta inuu masaajidkii yimaado mar haday dhici karaysa inuu masaajidkii yimaado dadka salaadii fadliga badnay dadka la tukado waxba yaanu doorka ku degdeg marka sheekhu saas uu itlaaqay wuxuu yiri dhamaantood saas u fadli badan waana culimada iraaqiyiinta la yiraahdo siday u itlaaqeen qoliyo kale oo khuraasaaniyiin la yiraahdo ayaa iyagu tafsiil galiyay saasaanay mu'tamad ka dhigaano dadkii laba loo kala qaadaya kuwa filanaya in cudurdaarkoodu uu dhamaado oo rajaynaya in cudurdaarku meesha ka baxo iyo kuwa aan rajaynay qofkii rajaynayay cudurdaarkiisu inuu dhamaado sida kii xanuunsanayo iyo rajaynaya inuu maartay fiicnaado oo salaada ka gaaro qolada iyaga waxa u fiican inay iska sugaan oo markay cadaatay inaan waxba ka gaaraynin ayay iska tukan doonaan horta inta jumcaha la tukanayo ha sugaan
qofkii laakiin cudurdaarkiisu meesha dumarkii oo kale dumarnimadii meesha ka bixi mayso iyagu hore isaga tukanayaan salaada awalkeedii fadliga badnaa ayay la imanayaan imaam an-Nawawi isagu tariiqa kale ayaaba marayo sharxul muhaddabka oo isagu doortay oo ikhtiyaaray wuxuu yiri dadku laba baa loo kala qaadayaa mid rajo ka qaba inuu jumcaha tago iyo mid ay ka go'an tahay inaanu tagin kay ka go'an tahay inaanu tagin oo cudurdaarkiisa uu iska laazim markiisa iskaga tukado awal waqtiga iska ilaashan waxba jumcaha dadka yaanu fiirinin haddii uu ka rajo qabo isleeyahay talo ma tagtaa mise waa joogtaa ma tagtaa mise waa joogtaa isleeyahayna yaanu waxba tukanin ilaa inta jumcihii laga baxayo oo ay cadaanaysa inaanu hadda meel ka gaaraa aanay jirin ومن لزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ومن لزمه فرض الجمعة قفك إساق الجمعة فرل كيد وكواجبه لا يصلي الظهر كاسي ظهر كتكن مايو قبل فراغ الإمام من الجمعة إمامك انتانو كبحين صلاة الجمعة فإن صلاها دوتكدو قبل فوات الجمعة جمعه يرضعفين لم تصح صلاة صباح صح ميسو في أصح القولين لو قول كود الصحة بدل قفكي جمعها اللي قولها هدو دورون اسكتو كذا كور يديو عن جمعيه من ولي تكر مركين لا أدمي أيوم بو اسكتو كذا سقو دورون اسكت عاجسنا ما هي مكات صعون كرتها ودي لا يالكاس دنا خطبة ay kugu dheerayno halkiisii uu iskaga tukaday duhur uma banaana waa ka xaraan wa misalada hore man lazima fardu al-jum'ati la yusalli ay la yajuz lahu way uma banaana inuu salaad duhur iska tukado iyadoo wali jumcii la tukan waayo ninkan jumca ku waajibtay salaada jumcada ku waajibtay duhurkan kuma bay waajibin maanta jumca ku waajibtay hadduu hadaba tukado kadibna salaadii jumcaha la tukado hadduu tukado wuu dambaabay salaadan saxayn buu tukaday hadduu markaa jimcihii yimaado uu dadkii jimcihii la tukado dee wuu si fiican buu yeelay jumcahan baa wasaxay wixii horena waxba kama jiraan qowlan waaxidan halkaa muran kama jiro laakiin haddii intuu tukado uu iska fadhiisto anu jimcihii iman deetana jimcihii la tukado jimcihii laga baxo ayaa imaamku wuxuu laba qowl ku leeyahay ma mar dambe ila ninkii jumca ma tukan karo jimcihii waa laga baxay haddaba ma mar labaad duhur tukayno odhanayna mise tii hore uu ku dambaabay un baynu odhanaynaa bal iyaduuni imika ha ku ansaxdo kol haddaad kaari kugu dhici weyda jimcihii ka tagtay dee duhurkii waadigii tukaday waxba mar labaad tukan lagu odhan maayo labada sidee la yeelaya halkaasaa imaamka labadiisan qowl ay markaa ka imanayaan markaa qowl wuxuu leeyahay dee haddaynu imika haddana wax tukanna dee duhurunbuu tukan soo ma ilaan jumco kale ma jireen duhurna waa kii hore u tukaday markaa intaynu imika tukana dee tiisii hore uun aynu u tixgelino waanu dambaabay ilaahay dambi dhaaf aa weydiisto jumcuhu ka tegayna waa ku dambaabay dee duhurkana waa kii tukadee haw markaa socoto kan kalena wuxuu leeyahay may tii hore waxba kama jiraan wuxuu tukanayaa imikuu duhur labaad tukanay duhurkii horena baatil buu ahaa kanaana saxiixa qowlka saxdii waa in wixii hore waxba kama jiraan yahay waayo iyadoon duhurba isaga lagu lahayna jimca lagu leeyahay ayuu duhur tukaday كان مركا مرجوح ضعيف كا وقول قديم كي شافعية وحكم بنيسية هيبال ليلي بناء على أن الجمعة بدل عن الظهر إن صلاة الجمعة أنا صلاة مضح بنان أهين أي بدل كتهي صلاة دي الظهر سيدا دراديدنا تاني كان أصل كيبو تكذيبا هدن بابه وما أنت يقولوا تنتو كذي أهي لكن تي أصل كهيد بو تكذي تصح مع الإثم ويؤنصح يسار يسوق الدنبابي قول كان جديد كأو معتمد كينا وحليها ما يعني
بدل كما هي الجمعة إيضا فرل أصلية ومضح بنانا مركا إيضا اللوالو أيها الظهر كمالين تانو كلا وبدل كالنقضة إيضا السيدة بدل أغماءها ظهر كي بدل أغماءها الصلاة دي أصلية أهيد ويان مانتا جمعة كاسا مركا معتمدو قد كان أي جمعة كو واجبتي صلاة دو أصل كي واجمعة كل كي جمعة اللوالو أي الظهر أبايريان وبدل أي إيضا أنه قريساي صلاة جمعة إيضا بدل كما يهاي الظهر وحانا تصير يبال ليلي إن آناي جمعة الظهر كي بدل كأهاي والظهر كو آناي أصل كي أهاي حتى الظهر كو أصل كي أهان لهاي كا إيضا جمعية لتكن ظهر تكذي تكما ينان واجبين أنه جمعة ويماضو وأي أصل كي تكذي وحنا الله يسلو وافق سيئة إنه يواجب كتاين وصوع على رأو وصلاة دي جمعة كسو قارو كأني تاسي أصل كي تاي آياتو السنس وعلو ومن لزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح ما بقى صح يسو أو ما بقى قنطم يسو وصلاة دي سوى الصلاة الأنوي في أصح القولين مركي الجمعة أي نافته أيها وحال أرنا يا مر لبعض ظهور كي تكو ويمكن الظهور لبعض بتكني ومن لزمه فرض الجمعة قفكي هضبا جمعة فرل كيدي ولازمه لم يجوز له ما بنانا أن يسافر إنه سفرا لا يصلي فيه الجمعة سفر آنو جمعها تكنين بعد الزوال إنه سفر زوال كدبدي إنه سفر ما بنانا وهل يجوز ميو بنايا أي سفرك قبل الزوال إنتاني قرحد الزول في قولان لبا قول باكو السجن حكم كلا أحكامتي دات كان أي صلاة كو واجبتي جمعة يا أيو شيء هدي وقت يجي جمعة على الصاقل الظهر كي لجارو وقت يسي مالتي لما مال الجمعة عيتها قف كستو صلاة الجمعة أي كو واجبيسي سفر كي واكا ممنوع وهذه سفر كاسي وجمعها سيجني وهي صلاة دي واجبتي صلاة دي محي كو واجبتها دي بدخول الوقت وقتك السوقري دي سيكو واجبتها وقد دخل وقتك ينو صوقري وما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب وحي أن واجبك كل ما يستير مين إلى السجل عليه ما دير السجل عليه ما دير نقول مركا إن توقفت إقامة الجمعة على الإقامة وجبت الإقامة هذه صلاة دي جمعة أوجد دي أي كحد ناطو إنه نجاده وأنو السفر إنه نجاده واجب بين قريصة وصلاة دي واجبتي حق يالنا معايو إنه السفر اسكن نافيو لكن هذه مركو السفر وكجارة يتولوينك وتيجي أنا لقوا أوجيو صلاة جمعة صح لقوا أوجيو أو تأتي كجارة إسلامية تحصل ملاه وعاد واجب كده موسيقيني وكا واجب كيسي دي سيء وقتي مركتها سوى عادي لكن هذه سفر كوياي سفر جمعة دي سيجينية حرام النقرين تتنقل سفر حرام النقضو ده الرخصوين ينكي سفر كورا ما يالاني صلاة الجمعة ويكو واجبتي مركا أي نافطة ده ظهر بوسكتو كان لكن ظهر كي قابين مايو أفرق عدود بوتكن وهو عاصم بسفري من سفر كيسا قدام بابي النقرين والعاصي بسفري لا يترخص صادو جيدين مرة خصيصين جدي مركي الجمعة أي تكتوي كذا بي أيام مركا لو يقول يا هاي إنه ترخص الرخصيستو ويا تسوى بعد الزوال مركي وقت بسوق لي كدي هذين نقطة دبق قبل الزوال كور وقت يجي جمعة ولي لجاري ما أنتي جمعها ما لا سفر كرا لا بقى أقول باكو سبعة وأنتي واجب بريه كدي هبين نبض الجمعة وات سفر كرتا هذا الملأ لكن قال لي كهراء جمعة وابري وحي كضم بيا بعد طلوع الفجر وقبل الزوال أنتي واجب بريه ظهر كينا أنا وقت يوسف سوقرين أنت هؤلاء عيسوا ما أنت قال لي كذي هراء ما لا سفر كرا إمام كل بقى قول بكلي قول وحولي هاي ها والله سفر كرا حقوك إيه
من حيث النقل حق النقل دي واحد لسوري النبي عليه الصلاة والسلام إنه مال الجمعة الصفري وعكر له سوري النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة وعيدا كدرا وعيدا هجامي يري ده ترى مال الجمعة قال إنك يا رب حينك ما رأيتي كلهين عبد الله بن رواحة ده ترى أنتو يرفي كري ويسيري عيدا كنا هصير صعده أضيتو تجمعها النبي قال له كتاب عليه الصلاة والسلام كدب بودو عيدا كجاد تهتنا مركي النبي صلى الله عليه وسلم تكذي واركينك عبد الله بن رواحة عيدا كو كدراي عيدا كدنا هجاميني oo tukanay la joogo warwaasidii maxaa dhacay markaasuu rasuulkii ilaahayo waan sii diray waxaan yar jeclaystay inaan jumcaha kula tukado kadibna aan ka daba boodo markaasuu wax kasta hadaad samayso horeynta yaray ka horeeyeen ajarkay ku kasbadeen wiliga ma gaadhaysi marka xadiidkaasina de wuxuu tusinayaa baa la yidhi in jumcihii gelinkii hore لا صفر كراي ومن حيث العقل أو من حيث المعنى حق تعليل كاتيل إيجانا وقول كاسيلي ده صلاة وحي كوا جبتها بدخول وقتها وقت يدو صقرة صلاة دي جمعونا ده وقت يدو من الزوال مركي قرأت الزوجو سوقلية مركي ما بيو سوقلين لم تجيب صلاة ما بي واجبين صلاة أن واجبين ده قفكين لو تشوتشيان ده وحي خلاف سنتهاي قياس كيف خلاف سنتهاي marka qofku wuxuu kuma waajibay uu iska safri kara xagaas uu qowlkaasi ka ee qowlka kale isaguna xadiis iyo tacliil baa uu haysta qowlka oranaya waa xaraan oo waliba ka hore waxa si jira athar ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yo in al-jum'ata la tahbisu عن سفر أما لا تحبس أحدا صلاة الجمعة عندنا سفر وما ديدو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا انتم بقلين الله ما انت هتانا الجمعه هاي واسك السفر لها ايوه ده سفر السفر الجمعه عندنا ما حبسته كان وايس قولنا ضب قول كان marka labaad way haystaan xadiis النبي عليه الصلاه والسلام ويري من سافر يوم الجمعه دعت عليه الملائكه الله يصحب في سفر قفك سفر maalinta jumcaha malaa'ikta habaarta inaan loo wehel yeelin safarkiisa xagga ilaahay inaan looga wehel yeelin safarkiisaasi iyo ku habaarta xagga tacliilkana waxay yiraahdeen salaadan jumcadu waa mansuubatun ila al-yawm mudaafatun ila yawm al-jum'ah waa salaad loo idaafeeyay oo loogu magac daray maalinta jumcaha maalintii jumcuhuna waxay ka bilaabmaysaa waa bariga marka hadii waagu bariyo yawmul jumcihi waa la gaaray salaadii marka yawmul jumcaha ama salaadii jumcaduna qofkii calaaqay la yeelatay inay calaaqa la yeelatayna waxa ku tusinaya dadka aynu lahayn hadii adaanku gaarayo jumcihi way ku waajibaysaa haday u baahan yihiin midalan si ay salaada jumcada u gaaraan inay 2 saacadood soo lugeeyaan haday u baahdaan maxaa ku waajiba inay 12 ka soo dhaqaaqaan ama 10 ka soo dhaqaaqaan si ay salaadii jumcaha uga soo gaaraan marka waadigan ku waajibiyay inay soo dhaqaaqaan 10 kiimiya waqtigu soo gaaray inuu soo galay waqtigu muu soo galin laakiin inay 10 ka soo baxaan waxa ku xiran inay jumcadii ka gaaraan oo ma la yatimul waajibu illa bi fa huwa waajib baad gelinaysa tan waa la mid ah hadii ninkan safraya oo safarkiisaasi jumcadii uu ku seegayso waxa tiraahdaa ma la yatimul waajibu illa bi فهو واجب السوق marka adu ahadiithta ku soo aroortay masalada labada qowlkay doonto waa waafaqsanaatay wada tacliil illa ku sugan mid maartay ma asixin kuwii qowlka hore xujaystay iyo kan uu qowlka dambe xujaysanayaaba wada illa ku sugan xagga sixada waxay leeyihiin dacfi baa ku sugan waxa uu meesha marka soo haraysan labada tacliil midna uu leeyahay de salaada waqti wujuubkeedii lama gaarin la iska safro afarkii umaro isagu saxiixa in الجمعه لا تحبسوا عن سفرنا لغو خوجيو قولكاسي وا قول iyo qowlka culimada ay mu'tamadka ka dhigeeno isagana tacliilkiisu yahay ma la yatimul waajibu illa bi fa huwa waajibun waxa laga qiyaas qaadanaya waliba halkani qofka jumcada meesheeda ka durugsan ee si uu jumcadii uga soo gaaro u baahan
قبل الزوال إنه صار لجايو واتلقوا واجبنا إنه صار لجايو والزوال كي كهرو صابحه يدو قاعدة سلا يلالنا يد تنوع على مدبين كاس أنا مركب معتمدة كل هدي جمعي واجب بريء إن أنا أتصفر عرين كريم صفر عرين يسا وقت قاسي ما تشيريو هدي أنا حالة أتكين وده ديارك بكاتجيس وعادي تذكر سراعي سباي كاتجيا هلو تولد كليجا وده دي مري كلي ميزي أما الديارة دي بكاتجيس وقت قاسو كلي ما أنت أصيب بحضابه تسلم أنا واجمع ما أنت متجيا صلاة كدي بان ما صفرية كوبي توكي كعيساب أما بعد الزوال كذا قاعد طلبيه توكي بركي كعيس صلاة الجمعة اللي وجه فوات الرفقة الله يرادا dadkii aad raaci lahayd ba ka tagay marka xaaladda iyada de waad iska baxaysaayo cudur daar baad leedahay wala tasihhu aljum'atu illa bi shuruutin salaadan jum'adu ma asaxdo shuruud mu ila la helo mooyaan ahaduha midka koobad an yakuna fi abniyatin mujtami'atin ma anta kuna wa in salaadan jum'adu ay tahay dhismayaal urursan wa in lagu oogay wa in magaalo meeshu ay tahay guriyahoodu ay dhisan yihiin ama ka dhisnaadaan dhagax iyo ciid ama sarab waxa dhulka lagu qotominayo ee lagu dhisayo ee loogu talagalin kolba inta la yar fujistay hadana meel la tago sida aqal Soomaaliga iyo boolka khiyaamta de kuwaasi dhulka wax yar un baa u hayo dhiga iyo xubba loogu yar dhidbay laakiin waa wax loogu talagalay in kolba la fujiyo meeshii la doono la geeyo laakiin gurigii dhagaxa ah iyo kii sarabta ah iyo waxa la midka ama jiingad iyo wixii la midka ah de waxa loogu talagalay halka inuu markaa uu ahaado oo ku dhisnaado wax markaa kulba guuritaan loogu talagalay ma marka waa inay magaalo tahay dhismayaal noocaas leh meel aan halka ahayn jumcaha lagu oogi karo oo xataa dadkii magaaladu intay sir urursadaan meel koono oo intay ka baxaan magaaladii banaanka jumca kuma soo oogi karaan waxay leeyihiin xataa masjidku masaajidada qaarkood ba magaalada meel ka durugsan laga yaabaa in laga dhiso dadka masaajidku qurux badan yahay oo weyn yahay arna mariya kaaba jumca iska soo tukanay inay qaar badan ay yiraahdaan baa laga yaab laakiin halisteeda ay leedahay kol haduu masaajidku magaalada ka baxsan yahay oo qofkii musaafirka ahaa halkii uu salaada ka gaabinayay maartay halkii laga qasrinayo qofka baxaa marka qasriga ka bilaabayay uu yahay halka salaad jumca ku asixi mayso jumcadu waa magaalada dhexdeeda ama masjid lagu oogay sida keenan oo kale ama banaan baa lagu tukanay sida garoon oo kale laakiin waa inuu magaalada dhexdeedii yahay ama koonayaasheedii magaalada ku dhaganaa waa inuu yahay aanu ahayn meel ka baxsan magaaladiiyo ka go'an oo ka gaara waa inaanu ahayn oo kuma asaxdo salaadani baadiye kuma asaxdo waxaana tusinaya xadiiskii ibn Umar magaalada nabiga kaleey salaatu salaam magaaladii ku soo xigtay ee jumca laga oogay jawaafay ahay meel kale jumca laga oogay ma jiro baadi dad ahlu baadi ah baa jiray oo caraab ahaayo muslimay jumca ooga laguma oran nabigu safar buu gali jiray baadiyaasha uu maartay marayo jumca lagama oogi jiray marka meel miyi ah jumca laguma oogo والثاني أن تكون في جماعة شرط قلبات وإن صلاتني أي تهي من مركات جمع لقو أوغيو لا تصح فرادا بالإجماع وي سيدا الاسكود وفقسي إجماع صلاتني كلي لو متكدو وقف كلي جي صلاة جمعة تكنيا دي متشرو مع صحيسو والثالث شرط الصدحات أن تقام ب40 رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في الموضع لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أنا وقت ساعد بقى طيب أنا كاسين بتوجين إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله وعلى